sida arkaysan hadda dahabku dabcan waxaan filayaa inaan soo dhigay xalayto kowdii habeenimo sigan anaan kasoo diray oo aan ugu talagalay marka ardada inay ka faa'iidaystaan ilaa saakay intriga waa u joogay saakaad almost 8 meelaha wixii ka dambeeyay unbuu soo daadashada sameeyey inta ka horeysay intriga ayuu ku wareegayay marka almost 55 bibis waa ka qabateen maan filayaa kadib asagoo aan noo gaarin TP-ga almost 1800 noo aha ayuu dib u noqday that means waxa weeye suuqa halkan waa markii labaad laga celinayo waana in badanna waa laga celin karayaa waa macquul waa markii labaad laga celinayo shalata sidoo kale waa laga celiyey intuu xoogaa biibana siiyey 55 kaas almost waxaan isdhahay maanta 100 bibis meelaha uu tagayaa kadibna waad ka qaadanaysaan laakiin waxay u muuqataa inuu mar kale uu dib u noqonayo laakiin waxaan eegaynaa insha allah kanalkan hadda furan ee 4 hourka ee 43 daqiiqo ka dhiman tahay kan laftigiisa 2 hour waa isku wada mid wuxuu dhanba kan hadda 43 daqiiqo ka dhiman tahay baa go'aan ku qaadanaynaa insha allah inaan markaas sii qaadano oo sii sal garayno ama inaan sii bay garayno oo aan ilaa halkan ama ilaa waxa loo yaqaano korba ilaa 18 oo kale inuu ku noqonayo maadaama halkan ay tahay meesha ugu badan ee issue ku haysto oo uu suuqa ka dhaqaaqi laayahay shalay maantana waa 2 maalin oo badan inkastoo uu suuq isku diyaarinayo mar walbaba NFP oo la filayo inay noqoto positive weekend insha Allah jimcaha soo bixi doonto marka inta badan isbuuca NFP suuq aaq badan malaha maalmaha ka horeeya jimcaha oo dhan suuqu si fiican uma dhaqaaqo dahabka laakiin NFP markuu soo baxo oo uu newska soo baxo ayuu qarxaa oo si fiican u qarxaa marka quotation bib cid ka qabatay ma jirtaa 55 bibis kaas cid ka faa'iidaystay ma jirtaa leader Morgan صدق شنبيب aniga soo shani ka qabatay leader يسمع على 40 bib yaa kale saaka qaatay 35 bib soo loo intriga saar okay yaa kale hisada ka hor baan 20 bib ka soo qabtay good hanad horta mid ogaada arday mid ogaada 55 bib oo dahaba 55 bib horta waa lacag badan 55 bib is just too much 55 bib markay marayso half qaado inaan ku raado waan hilmaamay laakiin maxaa yiri stop loss ka keenso entry point here stop loss ka keenso entry point here أنا واحد ما مكرر أنا هذا half قاضي لكن هذه حاجة بينات همامي 55 is too much 55 is ما كان بس شنو كوفران أو كله 50-60% وأنا حرتيد عمرنا يعني فول كان فرق صبرنا بس الكوعس بين إن بقول كي باللحدن أنا 60% أو كله ما كانوا كله 60% وين أي حولها حاجة كو security secure وام حي security وام حي secure كو حوي inaad xiratid 60% fodhiga kale stop loss winter kan haduu marka ka saaro iyo hadii kale wax problem ma laha hadaba si ku ogaanaya 35 inaan 55 bib kaas inaan xirtay 60% misalan 3 position ba ku furnaa laba hada xiratid just 60% almost 70% هذا هل بس شو كفرنا ولدكوا ها 0.10 أو كله almost 0.8
0.06 xir 0.04 na ha kuu shaqayso just simple weeyaan aslan according to the lot size-ka iyo position-ka intaba waa ku cabiri karaysaa intaba waa ku cabiraysaa tusaalahaan oo kale waxaa ii furan 0.10 oo kale hal position marka waa 55 bib gaaray oo macalinka sheegay ama macalimiintu way sheegayaan ku sheegaya maxaan sameynayaa almost inaa markaa 0.06 inaa xiro maxaa shaqeynaya markaa waxaa shaqeynaya 0.04 intaas baa marka waxaan keensanayaa stop loss to entry that's the concept waa in terms of lot size ka saas u kala qaybso hadduu hal position ku furan yahay saa u kala qaybso hadduu laba position ku furan yahay totally ba haddii laba position ku furan yihiinna mid xir midka kalena stop loss ka keenso entry point-iga haddii saddex ku furan tahayna totally ba laba iska xir midna keenso stop loss 20 halka marka ardayda waxaan rabnaa inaan isla fahanno waxa loo yaqaano inuu macalinku oranin intaa qaado iyo intaa qaado dib lagu sheego cadadka bibka ee markaas uu marayo waxaan rabaa in adiga markaa garatid xataa bibiska laftigiisa inaad la socotid sometimes marka hadda 55 bibs oo isla markii intriga ay naga saartay is too much marka ardaygu maxaa ku qasbaya adoo intaasoo faa'iida haystay inaa waxa loo yaqaano aad entry point kaga baxday adoo suuq imaanta waxba ka faa'iiday waxaan filayaa inay intaa yartaa macluumaadka yarkaa uu wax badan ku sameynayo ama make sense haddii aad fahantay waan soo qor hadda kadib sidaas ayaad u apply garaynaysaa iyo rules marka muhiim ma noqonayso hadda kadib in lagu sheego lagu yiraahdo sidaas samee macna waxba uma baahnid waxaas oo dhan waxba ugama baahnid سكرية محمد أحمد يا كرو فهمي هذا فاهمين أو ماشي عايز فرح في الجديد bad for you حال واحد repetition صار نقاش هو واحد يكون هنا واحد فهمت وهذا واحد كوفي عن ما it's just شيكول لغا شكيني ما واحد يكوفي عن هذا فاهمين وحدي كتا ما فاهمين سيلو فانسيو اما فيديو قاعد ديبو عشتي دو كله صوتو حوي رولز كاني ورولز اديغا كوفي عن ويان او ماكياد سمينيسيد waxa loo yaqaano signalka qaatay oo kale aadan mar walba uga bixi karin stop loss to entry waxaan maleynayaa waa markii shanaad aan sharaxayo qofka in terms of lot size uu kala qaybsan karaa in terms of position uu kala qaybsan karaa marka uma baahnid in lagu tilmaamo lagu yiraahdo sidaas samee contention babe is too much it's a way of too much aniga TP1 waan ka dhigi karay contention babe laakiin waxaa dhigi waayay almost 150 babe uga dhigay waxa weeye in ardaydu wax badan ay helaan wax badan in ardaydu helaan babieskana inta badan TP-yada waxaan ku xisaabtamaaba taanto idin sheego TP-yana kuma xisaabtama babes baan ku xisaabtamaa hay TP-ga inta sugaysid maybe inuu time badan kuu qaadanayo laakiin babeska inta u baahan tahay waxa laga yaabaa inaad ku heshid waqti yar oo kooban marka inta yarta waqtiga kooban aad ku heshay almost waa school garaysanaysaa marka inta kalena waa iska sii shaqayso hadii marka kugu soo noqotana you almost in profit faa'iida joogta marka baahi kuma sii hayso oo suuqa marka ku noqotid oo suuqaad fighting la gashid because you are in always in profit okay laba arday ayaan fahmin baan rabaa inaan fahansiiyo tusaalahan oo kale aan halkan kugu soo celiyo arday waxaan aan tirtiro si simbaliya ardayow markii dahabka aan soo dhigo aniga lacagta aan soo dhigo inta badan waxaan soo raaci jiray
geyso inta badan waxaan soo raacin jiray half qaado laakiin bini aadan baan ahayo half qaado waxaa laga yaabaa inaan hilmaamo ama iga hoos baxdo inee arday baa waxay u soo qoray saddex arday aan fahmin waan ku soo celinaya insha allah tedi bib haddii aad bilow tahayna waxbaa isku sii wareerin casharada basica iyo inta badan mashquulka awoodda saar videogan oo ku dugan yahay markaad soo gaartay levelkaas oo kale insha allah waa fahmi doontaa tedi bib inoo dhig tb1 50 inoo dhig tb2 18 inoo dhig tb3 saasaa noo roon maadaama weli aan xalif ku ahayn suuqa okay cabdiqaadir insha allah waa eegaya walaal وفكرت في عن عبد القادر فكرت في عن إن شاء الله تعالى تلفت إذا وأنا إيجي إن شاء الله أما صنت أرددا أن فاهمين برامج أبو سعودية سيامك عن فرصة كذا السوق عن عدا كهذا إنه عن أسري كذا كمان أوكي سوق أنت بدن وحل وحساب تمارته تريد ريسك قدام حكوا حساب تمام تريد ريسك قدام حكوا حساب تمام بيبس واضح بيبس هو حل لعقت الرسمية هو هي لعقت الرسمية ممكن نقول في تميش المنطقة marka isticmaalaysid ama account ahaan contractga marka furanaysid marka loo xisaabiyo contractga marka furanaysid waa wax marka lacag ku sameeynaya bb space my business inta badan waxyaalaha aad u isticmaalaan ayay ka mid tahay traders okay haddaba maanta suuqa wuxuu dhaqaaqay mar walba ardada waxaan la socodsiiyaa bbska marka signalka aan soo dhigay bbskiisa ayaan la socodsiiyaa sometimes waxaan dhahaa ardayga xiro waxa loo yaqaano qayb qaado baan inta badan soo raacin jiray laakiin sometimes way ka hoos baxaysaa waxa laga yaabaa inaad biniaadan baa tahay inaad iska okay maanta kale contation bib suuq dhaca contation bib marka waa lacag badan marka loo eego dahabka sanadkan soo dirna waa lacag badan marka loo eego dahabka okay marka contation bib u dhaqaaqo suuqa ama 30 bib u dhaqaaqo ama 40 bib u dhaqaaqo adigay markaa tahay inta baahidaada tahay haddii baahidaadu tahay 200 bib waa wax yani la kafin karaynin laakiin 30 bib iyo 40 bib iyo 50 bib waa wax mar walba available oo la heli karayo mar walba available oo la heli karayo marka quotation bib suuqa dhaqaaqay quotation bib stop loss to entry keenso baan eri stop loss keenso entry point baan eri laakiin hadda kadib shuruudii inoo ahayd 30 bib haddii la gaaro maxaa hadda kor idin dhigay fiidiyooduna way duban yihiin 30 bib haddii la gaaro dahabka always wax qaado always partial profit samee qaado partial profit wax la tag samee sababka wax u sameynaya way sidee partial profit u sameynaya su'aasha waa taas sidee partial profit u sameynaya saano kala dahabka wuxuu dhaqaaqay aniga 40 bib 40 bibs buu dhaqaaqay maxaa ma contract marka ifran huya contract waxa weeye waa contract markaas aad furanaysid ganacsiga markaas sameynaysid aad suuq ka iibsanaysid kadibna suuqa inta uu ku dhaqaaqay lagu dhufanayo marka lacag isku bedelaysa way contract marka waa lot size ka furan muxuu yahay su'aalahan isweydiini waa maxay dhowr su'aalood waa lot size ka furan waa maxay su'aasha labaad isweydiini waa maxay position ka furan isagana waa maxay isagana waa imsa position ka furan waa imsa
okay haddii uu lot size ku furan yahay tusaale oo kale hal lot size waxa ku furan 0.10 ah oo hal position ku furan oo 0.10 ah maxaa sameynaysaa markaa waxaa sameynaysaa 0.06 waa xiraysaa maxaa shaqeynaya markaa waxaa shaqeynaya 0.04 0.04 kaas baad keensanaysaa stop loss to entry taa waxaa weeye momok lot size-ka la eega wey lot size-ka marka la qiimeeyo wey yani hal position waxa ay furan hal boss waxa ay furan 0.006 0.06 close gare xiro sukur ka samayso soo lacag qaado 0.04 kaas keenso stop loss ka entry point taa waxa weeye lot size-ka marka contract marka ku furan taasa u kala qaybinaysa haddii positionada aan nimaano oo ku furan yihiin misal laba position kaliya ay furan laba position ku furan mid xiro midka kalena keenso stop loss entry warka ma cabo stop loss to entry keenso haddii ay ku furan yihiin saddex position baa ku furan tusaale oo kale saddex position baa ku furan waxaa xiranaysaa laba position midka kalena waxaa keensanaysaa stop loss entry wasaahi ayagii baa kala qaybinaysaa haddii lot size uu noqdana lot size-kii saasaa u kala jiraysaa oo contract lot size ka yahay haddii position ay tahayna laba haddii ku furan tahay mid xiro mid keenso stop loss entry waa sahil saddex haddii furan tahay laba xiro mid keenso stop loss entry I hope ardada aan fahmin inay fahmin markaa daa fahanteen waa wanay soo qor ardadii aan fahmin wey markii hore taati sidoo kale ardadii aan ugu celiyey ya Axmed Xuseen ma fahanteen okay asi wanaagsan haddaba halkan baan idin soo dhigayaa if riwaayada qoraala waa koobi garaysan karaysaan koobi garaysta iyadoo qoraal markaas buu idin yaalaa markaa uma baahnidin markaa in laydin sheego hadda kadib sidaa samey already sidii waxaa la rabaa robotkii oo kale naa u shaqaysaan oo automatically-ba haddii lagu yidhaahdo sidaa samee in automatically-ba sidii qaadatid okay inahe automatically sidii qaadatid haddaba aan haddaba inoo galo dahabkiina fursad kalena intaan macalin ku wareejin key leveliska dahabku waa waxa basic u ah oo inta badan uu ku shaqeeyo way leveliska nidaam inta badan structure-ka dahabku ma uu aqbalo laakiin leveliska uu aqbala taas way dahabku muhiim ugu tahay inuu ardaygu leveliskaas uu ku wado ama ku barto dahabka haddaba structure-kan waxaa arkaysaan weekly-ga almost oo quruxda badnaa in barsigan haddii mataqaanaa uu sii socon lahaa oo kale oo jihadiisa wareejin lahaa ama jihadiisa bedelan lahaa way fiicnaan lahayd laakiin isla markii violation baa la sameeyey violationkana waxaa lagu qasbay suuqu inuu kanna uu noqdo uptrend kan hadda socdana uu downtrend noqdo waana sida inta badan aan maalinteeda ka tegayena aan idinkaga tegay waana sida ilaa hadda ka rajeynay laakiin dahabka waxaa laga yaabaa hadda inta NFP lagu jiro NFP inta lagu jiro oo NFP socoto aan sugayno waxaa macquula inuu kan hadda weekly-ga socda inuu dhammaystiro kan weekan buuxiyo kadib inta aan soo celin oo halkan 50% bayna ahayd almost 60 oo afka saaro kadibna markaa u socdo
marka there is possibility laftiga today oo aan buy garan karayno dahabkan buy ahaan usii qaadan karayno maadaama sidoo kale levelkan dhowr jeer laga celiyay halkan hoose marka insha Allah bal daily-gana tagno daily-ga markaan tagno still waxaa aragnaa daily-ga markaan tagno still waxaan arkaynaa in suuqu still waxa loo yaqaano hoos u socdo laakiin hoos u socoshadiisa ay hortaagan tahay gidaarkan uu hortaagan yahay gidaarkanna in NFP kaliya la soo jabiyo ma ahane gidaarkan lama soo jabin karayo si kale laguma soo jabin karayo laakiin NFP macquul weeye in breakout dhax sax ah sababtoo ah shalaytana waa lagu feelgaroobay maantana maybe in lagu feelgaroobi doono oo suuqu halkan gaari doono kadib inta uusan soo dhicin mar kale oo halkan iman marka taasna waa another perspective oo daily-ga ah يعني almost 13 18 وانت شريته بكوريجيا انت شريته بكوريجيا صار كاركسانا ستيل وكوريجيا وهلكن جدار كان waxa weeye meeshan 4 hour ka in la gudbiyo way yara adkaanaysa marka hadda kan 4 hour ka baan ee ka dhimantay 23 daqiiqo baan fursad ka eegi doonaa baya لكن uma maraynayo inaan fursad sell kasii qaadan karayno sababtoo waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu week dheer intuuna la aado kadibna uu si aan inaba caadihin awoodiis u soo kacdo marka waxaan filayaa inta NFP laga gaarayo hadduusan breakout saxa maanta samayn hadduusan breakout maanta saxa samaynin in uu meeshan range ku samaysanayo ilaa inta NFP laga gaarayo jimcaha oo meeshan uu ku wareegayo marka gidaarkan وشايتبا وسقف كسرة كدكتي إنه كديجان دونه وغلان دونه وسيدا كشقين دونه ساقو سعان دونه مرك إيه مسبب ويه لا أنت عم رجنوبل رينج غير كأنت بيب ويه هاي almost وليحن بيب almost ليحن يلعب بيب واحد دونه إن شاء الله وحنكون قيمين لنا بعتها دقيقة إنه حتى هدولا هينو 2 hour almost all of them waxaa soo kaan dhalaa arkaysi waa rejections sida shaad kuwan rejections kan loo diiday kan weyn u abuurmay oo sida awoodda lagu kacay aan kana ka filaynaa maadaama kan laskan qadiyada ka dhan loo diiday in hoos la wado inuu sidoo kale meeshan dib ugu noqdo insha Allah inta xisadana waa sanad soo joogeynaa waxaan ku wareejinayaa macallin Cabdi Casiis macallin soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبض ما صنت أستاذي. أنا ذو سلام أيام معلمينها يلي درس كبارن الكسارن يدمان أرتدي حسيتك كسوق قبل شيء. بدي أضغط كي جمق لسان ونوان يسوق إن شاء الله. وي أدبو ما سنتين. أنا نسخ شير جري سنة مركز. وي هي وي نو شير جرين. أنا نسخ برابلنا مركز. إن شاء الله وأنا أجينا جي بي كات واي إن لعقتني هو NCDUSD ولعقتها ما تقاضني وحوي سقور حمض بين وسعتها لعقتني وأنا كرجيني أو لعقتها شلي دون مريني وحي سمين كرتو maadaama dollarku uu reversal yahay iyada lafteedu waxay samayn kartaa markaas NCDUSD saaka weyna la miiraysanaysay waxaynu ka qaadanay signalka halkaas aan ka qaadanay almost hada TB1 bay noogu dhowdahay noogu dhacday TB1 sarajinayo afka u saartay waa sugeynaa markaas lacagtani lacag aad u qurux badan bay ahayd sidoo kale SL-keeduna ma weynayn oo 12 bib buu ahaa saaka marka idin soo dirayay targetkan uga socnana waxa weeye waa 44 bib TB1 waa 22 bib markaas haddii aan lacagtan waxaynu ku qaadanay aynu dul marno shalayna waan idin sharax lacagtan shalayna waan idin sharaxay xiisada idin ku sharaxay qaabka ay silku soo aadi kartay wax walba haddii ay timaadana waa idin sheegay inaan silka soo qaadan doono inaga waxba inagama gelin dollarka haddii uu reversal yahay haddii kaleba haddii aan rules ka aragno suuq ruleska inoo waafaqo
waan idin sheegay lacagtaas waa idin soo diraya waana idin soo diray lacagtan lacag la hal maasha jirtay oo iyaduna same ahaayeen oo USD iyadana waan kormaraynaa lacagtan aynu fiirina marka qaabkan ku qaadanay lacagtani last lower lowgeedi waa kan last lower high-geedina waa kaas okay kan lower high ima noqonayo sababtu waa maxay yaa ii soo qori karaa sababtan kan lower high ugu tirsan waaye sababtan ka lower high ugu tirsan waaye yaa ii soo qori kara lower low ma leh exactly ninka waaye waa Said Ismail aad baa umaasanta lower low ma haysto sababtoo ah lowgan uu suuq markii hore lower low u suuq samaystay lowgan inuu jabiyo loo baahnaa si ay halkan official lower high noqoto marka lama jabin kan marka inuu kanan ku xisaabtamayna lower high-ga iyo lower lowgan iyo lower high-ga inta u dhaxaysana fursadda salkan ka raadsanayay halkan order block baa inoogu jiray almost TB1 waa inoo hit garaysay 22 biba halkan order block baa inoogu jiray liquidity-geeni waa kan wax walba suuqu waa inoo sameeyay halkan marka inagu mar walba trendiga waxaynu fiirinaa waxa jira risk trade iyo waxa jira yani confirmation trade confirmation trade waxa weeye waa marka trendiga lagu tago ee trendiga lagu jabsaday wax walba uu suuq ku sameeyo waa confirmation trade confirmation baa haysata laakiin marka ugu horeyso suuqu zone-kaaga taabto oo markana waa risk trade baa loo yaqaan markaas okay hore u socona markaas suuqu wuxuu inoo sameeyay trendi buu ku tagay zone-keena haddaan 2 hour ka imano si qurux badan baanu arkaynaa markaynu imaano 2 hour waxaan arkaynaa in suuqu uu halkan tagay wuxuu ku yimid trendi buu ku yimid trendigan yar waxaan ku yiri hoosta loola soo dagaa oo lower time frame ka loo imaadaa waxaan arkaynaa halkan inay lower high tahay dhaqaaqina jabiyay halkaas suuq markuu ku soo laabtay fursadda halkaas saakin ka soo diray asalkeeduna 12 buu lacagtaas haddii aad ka faa'iidaysateen 55 igu caawi markaas insha Allah وياي يوسف محمد سياد سامو أمين دادني كان واركا أحمد سديس واركا ما شاء الله أرضي فربلان باقابات أوكي هذا واحد نقول على تي بي 1 بين نقول عليه سيفي عم بي بي 1 نقول طابته 22 بيبا وأنا كان جينا إلى تي بي 2 إني لعقتها سي نو بارد لعقت اللعق أي سيم هاي باجرتا ويبدأ أنا أي iskumeel u dhaqaaqaan sababtan usoo diri waayeyna waan sheegaya markaas lacagtan waa lacagta la yiraahdo OUD USD OUD USD baa ka bibis fiicnaa dadka 100% iyadoo lacag ilaa 24 bibay soo dhaqaaqday laakiin SLK kala weynaayen inagu maxaan ku xisaabtanaa khasaaro soo ma SLK kala weynaayeen oo waxaad arkaysaa tan SLK guna inuu 20 bib 21 bib yahay taasna 12 bib ahaa number 1 taas ay igu soo diray labo lacagta waxay idinku soo diri waayay lacagtaasi hadday ay asal inaga dhici lahayd tan asal bay inaga dhici lahayd sababtoo ah waad arkaysaa inay isku qaab samaynayaan labadooduna inay istilsan yihiin markaas taas sababtaasan tan idinku soo diri waayay taasaana inooga risk yarayd oo asalkeedu 11 bib ahaa sidoo kalena taas markaas risk yaradaanu ku qaadanay labada lacagood waxay idinku soo wada diri waayay maxay ahaydeen in yani aysa saameynayaan oo hadday mid TB ku dhacdo tanna ku dhacaysa laakiin inagu mar walba khasaareenaan ka taxadarayna okay tradeeryahan yaa ka faa'iideystay markaas shalay waa inoo sawiran yahay halkan lacagta ka dirnay inay korkaas tagto kadib soonkan aan ka sugaynaa baan idin yiri maadaama DXY waa reversal tahay oo laga yaabo suuq inuu lower low sii samaysan waayo oo zoonkan laga celiyo markaas zoonkaas markay tagto zoonkan aan ka sugaynaa baan idin lacagta ay ka faa'iideystay markaas warwan isoo qorata ka faa'iideysatay lacagta lafteedu iyaduna waxay ku bixisay lacagta lafteedu waxay ku bixisay signalka ama trade-kan waxaan lagu qaadan lahaa lower high-gan marka ay jabisay zone-kan shalay waa inoo sawirnaa zone-ka hadday tagto fursadda waan soo qaadanayna baan idin lahaa laakiin waxaan ka faa'iideysanay inagu waxaynu ka faa'iideysanay lacagta NZD USD lacagtana arday fara badan baan hadda arkaa oo iyaguna 11 soo qortay oo maasha Allah aniga TB guma dhicin budnikaas insha Allah ما شاء الله أرضي فربنا بقاطي أو ما صورت أدو ما سنتي تري أديها أرضي ذكر فيستوى الله ما شاء الله إنه فرصة هذا بين كرادين لما كان القاسم عدو تري نقاب كوي ما تنقو قيمينا إن شاء الله فرصة أنا مركزان كفاية صندوقنا عدو لا إله وهي هي لبض العقود واد فانتين برجينية أهروسي سعونا بركة أوكي لعقت حكته way
arday baa wuxuu soo qoraya aniga TPE kuma dhicin TPE ma idin ku dhacday mise idin kuma dhicin bal 44 soo qoraad euro USD soo bilaabeyna kadib lacagaha kala ku dambeysay way igu dhacday ardayda kale way igu dhacday waaye ardayga waa adiga iska sugadigana insha Allah way kugu dhacaysaa in wax laga yaabo uu brokerka yahay dhibta brokerka tahay lacagaha sabab waxaan ku qaadanay waxa kamid ahaa in DXY aynu ka sugaynaa in hal mar kor aado lacagahaasina ay inoo siinayeen ruliskii oo dhan maadaama iyaga weli aanan reversal aynu ka arkayn oo sida euro USD iyo GBP USD aanan reversal hayn markaas maadaama DXY hadda aan abkan ka sugayno lacagaha sababta aan fursadda macla ku qaadanay DXY mid bay ka ahayd sidoo kale DXY lafteedu zone bay joogtay haddii aad lower time frame u soo degno okay zone-ka aan sawirano zone-ka iyo siduu ku awood weyn yahay iyo wax walbana maalinkii dhaweyta ayaan qaadanay ardayda u malayn maayo inuu zone-ku dib hadeeto ku hayo okay 1 hour aan tagno halka zone baa igu jira markaas zone aad u qurux badan baa ku jira waxaad arkaysaa waa kan zone-ku laftiisu fresh ma ahayn laakiin zone baa igu jira wala lagu qaadan karaa signal markastaan oo kale ay dhacdo maxaa dhacay markaas trendigi waa la jabiyey maxaa dhaqaaqi jabiyey waa kan wuxuu jabiyey lower high-gan maxaa dhacay bullback buu soo sameeyey inkastuna ilaa iyo meelaha inuu yimaado ay ahayd laakiin ma imaan maxaa dhacay laakiin hal marba waxaad arkaysaa in ay kor aaday baad arkaysaa markaas hal mar waxaad arkaysaa inay kor aaday baad arkaysaa marka iyadana waan ka rajaynaya ilaa iyo korkaa saraynay inuu si gaadho hadduu ilaahay idhaahdo waan sugaynaa iyada euro USD iyadana lafteedu waa reversal iyadana sal qurux badan baan ka sugaynaa ilaa iyo hoosta inay timaado markaasaan fursadda ka dhisan doonaa insha Allah wali waxba iskama bedelin sidoo kale GBP USD iyadana waxba iskama bedelin ilaa hoostana hoosaan ka sugaynaa si aan fursadda uga qaadano waana inoo sawiran yahay hadhow markay maadaama fursadaha ay ka eegi doonaa USD CHF iyadana korkaa sare ka sugaynaa USD JPY USD kaad iyadu wali high low iyo ku meeraysanaysa iyadana wax weey reversal saxayna siiso oo sell ah ilaa korkaa iyadu ku laabatay fursadaheega iyadana selkaan soo qaadan doonaa lacagtan USD cad ilaa iyo waxaan ka raadin doonaa korkaa sare ilaa meelahaas inay soo gaadho haddii korkaa soo gaadhayna in lower time frame meelahan aan zone ka raadsano oo ama ilaa iyo zoonankaas aan fursad ka raadino laakiin muhiimaddu waa trendiga weeye adigu mar walba ardayo trendiga ha iloobi GBP NZD waa markaa kusoo boodaya GBP NZD wali waan sugayaa iyadana inay halkii hoosta inoo timaado si aan fursadda uga qaadano wiigii hore dhaqaaqaas ayna dhaafay isagoona zone-keena imaan dhaqaaqiisa aynu sugaynaa wiigan GBP OUD iyadana waa anigii shalay idiin sheegay idin lahaa reversal way noqon kartaa sidii bayna samaysay iyadana waxaa laga yaabaa inay lafteedu reversalkan uu fake yahay oo abkeyga kusii socoto laakiin mar walba inagu waxaan eegaynaa qaabka inoogu timaado mar walba waxaan eegaynaa qaabka ay zone-kaas soo laabato trendi baa sugaynaa haddaan trendiga helno waan ka faa'iidaysanaa maadaama hadda trendi break aan aragno GJ salkii quruxda badnaa horta way soo aaday aan sugaynay si qurux badan bayna u soo aaday laakiin salka shalay halkaas hal laabataan lahayn waa inoo sawiran tahay saan fursadda salka u soo qaadano sidii may sameyn laakiin salkii way soo aaday iyadana fursadii kale ayaan qiimeyn doonaa insha Allah GBP card ardaydii soo qoraysay GBP card waa ninka shalay idin sheegay inagu lacagta marna wax ka qabsanay 740 bibo profit mar kalena waxaan ka qabanay 113 bibo profit oo salkan waan la soconay salkan shalay waxa idin sheegay in salkan uu sii socon doonin sababtoo ah qaabku suuqa ku socdo waxaan arkaynaa in buy la soo celiyay ilaa ay zone-kaas kore iyadana hal la geeyo hal mar zone-kaas haday ku laabato waan arki doonaa hal marna waxaan eegi doonaa inay meelahan ay tagto sidoo kale trendiga socdana waan qiimeyn doonaa insha Allah maadaama la soo laabtay oo wax trend break ah una dhaqaaqan ku jirin insha Allah GBP card iyadana still buy-geeda jeeni korkaas la aado fursadda salkana markay halkaas gaadho ayaan qiimeyn doonaa insha Allah euro card iyaduna wali warkeedu ma cadda still high baan ka sugaynay laakiin wali waxaan moodaa in suuqu halkan ka sugaynay aanu imaan okay lacagtan 2 hour tag lacagtan halkan ay fursad ka bixisay laakiin zone-kan hoostaan ka sugayaa zone-kan hoosta inay timaado wax zone ama aragno iyadana waan sugaynaa insha Allah
weli waan iyadana waan sugaynaa euro ncd salkeedii weli iyadana waan sugaynaa inay salkaas soo gaadho fursadda inay salkaas shalay ee inta soo dhacday waan la socday laakiin idimaan soo dirin sababtana shalay waa idiin sheego inagu mar walba fursadda suuq maadaama ab uu yahay abkaan la jiraynaa euro gbp tradekan waa tradeka week ay noo noqon doona trade of the week hadduu halkaas yimaado waana sugayaa insha allahu tacaala hadduu halka yimaado fursadda waan ka qaadi doonaa insha allah euro jpy aad bay u qurux badan tradeka waan qaadanay wiigii hore ayaa xasuustay tradeka 22 bii baa ka qabanay intuu inagu yar meeraystay buu inaga saaray tbiyadii si qurux badan bay hadda u yani ay u wada smash garaysay wiigii hore meelahan aan ka qaadanay dhaqaaq soo dhacay baan qabanay oo meelaha ku meeraysanayay dhaqaaqu inuu kan ahaa aan fiiriyo okay kan waa kanaan qaadanay inagu kan waa kan ilaa 30 bii wax saa ayuu siiyey kadib waa soo laabtay way meeraysatay trade breaker baa ka sugaynay inay noo samayso iyadii gbp jpy bay isku mid bay hayeen lacagtana zoonkii waa laga soo celiyey sidii bayna lower low ay ku samaysay haddii hal mar laabato fursaddeeda waan soo qaadan doonaa haddii kalena waxa weeye waa salkeeda ha kusii socota insha allah gbp jpy waa kusoo gabagabayn doonaa insha allah gbp jpy iyadana waa anigi wiigii dhow anigi shalay sheegnay shalay waxaan sugaynaya hal mar in trendigeena loogu laabto maadaama trendigan la dhameeyey trendigan uu dhammaaday waa in meelahan lagu celiyaa ilaa zoonka yara kore waan ka sugaya ilaa meelahan in la geeyo waa ka sugay oo waxaad arkaysa xariijintu inay ku sawiran tahay waxaad moodaa inaanan la gaadhinba uu suuqu iska soo dhacay marka iyadana insha allah fursadaheega dambe ayaan idinla soo wadaagi doonaa waxaan trade keliya qaadanay maanta waxaa jirtay lacagta ncd usd ayaa jirtay ncd usd na tb1 bay inoogu dhacday iyadana waan rajeynaya inay fursad qurux badan ayna sii siiso si qurux badan idinku dhaqaaqdo ilaa iyo 40 bii baan nuga soconaa maadaama ay dxy ay laftiba ay tahay reversal laakiin dxy dhaqaaq fiican baa aan ka rabnaa dhaqaaqaas waxaa laga yaabaa dhaqaaq ka weyn inuu soo dhaco ncd usd oo intaan ka rajeynayna maaha ilaa iyo ay soo dhaqaaqdo shalay ilaa iyo zoonkan ay soo dhaqaaqdo 100 bib uu yahay markaas insha allah haddii aad tb2 open ka dhigan oo khasaaraha adigu aad controlayso kulay markii hore waxa ku qaadanay 12 bibo SL waxa haddii aad khasaaraha rabtiin aad controlshid tb2 ka furo lacagta sii deyso anu kaliya 2 tb baa idinka soo diray waa sii deysan kartaa marka ardayga raba inuu hayo laakiin risk free ka noqo hadda tb1 ay kugu dhacday oo 2 tb ay kaaga furnaan 2 position midna risk free ka noqo midna tb1 buu kugu dhaco laabta u sii daa markaas insha allah ilaa iyo waa rajeynaya ilaa zoonkan hoose inay timaado inta dxy aan ka sugayna inay kor kaa sare aado insha allahu tacaala hadday fahanteen 44 soo qora markaas macalinkan ku wareejin doonaa insha allah waayahay gbp cad waan eegi doonaa gbp cad ardayga aan ugu celina markaas waxa laga yaabaa ardayda gadaal ka soo gashay inuu yahay gbp cad lacagtani waa lacag wiigii dhoweytaan ku hordegdegnay 34 bibo SL inta nagaga dhacday aynu ka hadhin haddana dib u soo qaadano tb1 keedu 740 bib buu ahaa meelahan uu tb1 keedu ahaa waan ka qaadanay inagu dhaqaaqan soo dhaqaaqo dhan waan la socnay ilaa arday 160 bib ka qabatay baa jirtay laakiin inagu tb2 baan kaga baxano 113 bib waana idin sheegay shalay lacagtan in la celin karo sababta lagu celin karana ay tahay dhaqaaq qaabka ay u socoto marka hal mar inay higher high noo samaysan rajeynaya kadib higher high-ga kadib baan qiimeynana marka lacagtaas markaa istir waa uptrend waan sugaynaa inay hal mar zoonkaasi gaadho waana waxaana laga yaabaa in ay lacagtaasi ay sidaas ay ku sii samaysaba higher high waan sugaynaa marka inaga hadba wuxuu trendiga suuqayna siyaan kula macaamilaynaa insha allahu tacaala waayahay arday kale ma jirtaa rajeynaya oo lacag loo eegay waxa ku wareejinaya macalin faysal soo dhow ustaad ما صنتهاي معنا آد ما صنتهاي حفلة إنا حيسد قبل tahay 5 دقائق إنه هرتي almost
fursad baayo fiican baa ka muuqata hadda dahab laakiin ilaa iyo intaas inuu gaarayo areada inuu soo gaari doono aan rajeynayno laakiin entry point fiican oo macquul ayaan ka raadsan doonaa wixii abdeeda qolka ayaan soo dhigi doonaa hadduu ilaahay idmo markii waqtigeeda la yimaado qayb badan baad direjinaysaa calaykum raxmatullahi wabarakatu